Dacwad oogaha guud ee Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada Dagaalka ee loo yaqaan Hague ayaa soo saaray awaamiir lagu xirayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirkiisa difaaca, iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ururka Xamaas, kuwaas oo labada dhinacba ku eedeeyay inay galeen dambiyo ka dhan ah bini'aadantinimada. Dacwad ooguhu waxa uu sheegay in baaritaanno ay sameeyeen ay hayaan caddeymo ku filan oo lagu soo eedeyn karo ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirkiisa difaaca in ay galeen dambiyo dagaal oo ka dhan ah bini'aadantinimada, kuwaas oo uu sheegay inay ka mid yihiin dadka rayidka ah oo si micno darro ah loo laayo, gaajaysiin ku talagal ah dadka oo laga hor istaagay waxyaabihii daruuriyaadka ah ay u baahnaayeen, iyo gargaarka bini'aadantinimo oo loo diiday inuu gaaro dadkii gaajaysnaa, kuwaas oo loo sameeyay si ku talagal ah si dadka loogu laayo gaajo. Dhinaca Xamaas, dadka la soo eedeeyay ee lagu baaqay maxkamadduna ay dalbaneyso in la soo xiro waxaa ka mid ah ninka Xamaas ka tirsan ee lagu magacaabo Yaxya Sinwar, kaas oo la aaminsan yahay inuu weli ku sugan yahay gudaha Gaza, ahna madaxii abaabulay dagaalkii la geystay bishii Oktoobar ee Xamaas gudaha ugu galeen Israa'iil, dad badanna ay ku laayeen kuwo kalena ay ku soo qafaasheen. Waxaa kaloo ka mid ah dadka dhinaca Xamaas laga soo eedeeyay taliyaha guud ee Xamaas, ninka lagu magacaabo Mohammad Deif. Waxaa kaloo ka mid ah garabka siyaasadeed ninka hogaamiyo ee loo yaqaan Ismaaciil Haniyeh. Dacwad oogaha ninka lagu magacaabo Karim Khan ayaa sheegay inuu tahay in uu qaanuunku shaqeeyo oo uusan qofna ka fakan, xataa haddii ay yihiin madax waddan. Garabka Xamaas oo ka hadlay eedan loo soo jeediyay iyo amarka ka soo baxay Maxkamadda Sare ee Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee lagu dalbanayo in la soo xiro, ayay ku sheegeen inay tahay mid laga xumaado, waxayna taa beddelkeeda sheegeen in qaraarku amaba soo qabashadoodu uu ku dhiirrigelinayo Israa'iil inay sii wadaan dagaalka iyo xasuuqa ay ka geysanayaan Gaza. Dad ku dhow ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo ka falceliyay arrintan ayaa ku tilmaamay inay ceeb ku tahay taariikhda adduunka, halka wasiirka difaaca Israa'iilna uu ku tilmaamay go'aanka ka soo baxay Maxkamadda Adduunka inuu yahay dambi laga galayo taariikhda. Sidoo kale waxa uu wasiirka ugu baaqay madaxda Israa'iil inay iska dhaga tiraan go'aanka ka soo baxay dacwad oogaha Maxkamadda Adduunka, ninka lagu magacaabo Karim Khan, oo uu ku eedeeyay yuhuud nacayb, wuxuuna dhiirrigeliyay in dagaalku uu sii socdo. Hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil, ninka lagu magacaabo Yair Lapid, ayaa ku tilmaamay go'aanka ka soo baxay maxkamadda ee lagu dalbanayo in la soo xiro ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca, ninka lagu magacaabo Galntam, in uu yahay musiibo.